asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada sida academy waxaan maanta muuqaalkan ka warrami doonaa qaabka AI-ga loogu isticmaalay si professional ah graphic designerka inagoo markaa ku dhisi doona 3 project oo waaweyn ka kooban noqon doona waxa weeyaan billboard aynu ku samayn doono redesigning project labaad waxaan ku samayn doonaa qaabka waxa weeyaan social media poster aad u qurux badan oo waliba Apple design ah inaynu ku samayno halka qodobka saddexaad aynu ku generate gareyn doono assetiska uu u baahan yahay websitesku haddii ay tahay iconska illustrationska iyo imageska markaa fiidiyowgan wuxuu noqon doonaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee akademiyadeenu si toos ah ay uga waranto waxa loo yaqaano AI-ska waayo AI-ska inta ugu badan waxa weeyaan muuqaala kaminaan soo samayn jirin laakiin wixii hadda ka dambeeya waxaynu markaa focus gareyn doonaa qaab si rasmi ah loo isticmaali doono ama qaabka sida waxa weeyaan shaqooyinka rasmiga ee aanu qabanno aan ugu isticmaalno artificial intelligence kala duwan marka kama warramayno basic iyo fundamentaliga kama warramayno inaynu ka sheekayno waxa weeyaan AI-sku inay bedelayaan shaqooyinka oo dhan laakiin waxaynu uga warrami doonaa si cilmiyeysan inagoo shaqooyinka maalinlaha ah haddii ay tahay codingka haddii ay tahay designiska haddii ay tahay istaraatiijiyadda haddii ay tahay businesska social mediaha content creationka dhammaan fiilasha kala duwan oo dhan aynu waxa weeyaan ku base garayn doono sidaanu annagu aanu isticmaalno artificial intelligence marka intii hore waxaan dib uga dhigaynay waxa weeyaan maanaan doonahayn wax loo yaqaano inaanu si degdega ama AI-ska waxa weeyaan aynu boonboonino laakiin hadda si cilmiyeysan ayaynu markaa u lafaguri doonaa casharkana wuxuu ka mid noqon doonaa casharadeena ugu horreeya ee aynu ku bilaabi doono inagoo markaa si rasmi ah u isticmaali doona inaynu ku design garayno professional graphic designer marka dabcan haddii aad tahay designer haddii aad tahay developers waxa weeyaan casharo badan baa inoo soo soconaya oo ku markaa khuseyn doona waxa weeyaan AI-ga fadlan haddaad markaa channelka aanad waxa weeyaan subscribe saarin subscribe inoo saar si aad markaa casharadaasi aad ula socoto notificationka furo waxaana muhiima inaad videoga aad like garayso si markaa algorithmka YouTube-ka dad badan u gaarsiiyo waxa kaloo iyadana haddii aad xiisaynayso AI-ska qaybo ka mid ah inay soo horreysiina casharadooda haddii ay tahay codingka ama qaabka waxa weeyaan developerska ay u isticmaalayaan fadlan commentiska inoogu reeb waayo mar walba waxaanu qiimeynaynaa oo ardaydu inta badan ay misgareeyaan waxa weeyaan wax wal oo aad topica aad inta badan loo badan yahay commentska laga warramo waxaan waxa weeyaan soo dedejinaa casharadooda marka aynu eegno haddaba si rasmiya qaabka waxa weeyaan dadka professionalka ahi projects rasmi oo ay macaamiil leeyihiin ay ugu isticmaalaan design gareynta artificial intelligence wayahay project ugu horeeya aan design gareyno inagoo isticmaalna marka waxa weeyaan artificial intelligence ama AI wuxuu noqon doonaa inaynu u design gareyno ama redesign ku sameyno waxa weeyaan design halka inooga muuqdo ugu horreyn design haddaan overview aan ka bixiyo design-kan waa billboard cabirkiisu waxa weeyaan 3 mitir iyo 6 mitir marka waa billboardska aad ka waaweyn marka company-gan oo inaan odayo saaxiibnay waxa weeyaan uu lahaa wuxuu ugu talagalay marka billboard-kan in xilligii 18 May ka hor uu campaign ku sameeyo calaamaantu inay diyaar yihiin waxa weeyaan dadka lagu ogeysiinayo isla markaa waxa weeyaan ay dadku calaamaanta ay iibsadaan marka design-kan berigii waxaan soo jeediyay marka waxa weeyaan habka u yaalaan itemskan waxa weeyaan in qaab ka duwan loo dhigo marka exactly shaqadii ayaynu u baahanay marka inaynu ku qabanno AI inagoo marka design-ka qaadanayna waxa weeyaan product iyo itemska halkan inoo yaala iyo waxa weeyaan magaca iyo brandka qaadanay laakiin waxaan u baahanay waxa weeyaan marka inaynu dib u design gareyno from scratch waxaan toos u tagay marka maanta laba yaabo inuu isticmaalaysan soo sheegnay mid waxa weeye waa ChatGPT oo waxa weeye inta ugu badan isticmaala khaasatan qaybtiisa waxa weeyaan image generator loo yaqaano ChatGPT image 2.0 waxaan soo qaadanaya markaa saynu sawir ka arkayno billboard waxaan aniga i qancinin oo aan doonayaa dusha sare waxaas wada bedeli doona laakiin habka waxaan ka bilaabaya shaqada marka qaabka markaad AI-gan isticmaalayo inta ugu badan hal mar waxa laga yaabaa dadka qaar inta halkan yimaadaan simple waynu eegaynaa inta halkan yimaadaan click siiyaan dhahdaan okay sawirka soo qaad billboardka deedna uu dhahdo open markaan dhahdo waxa weeyaan fadlan su'aalaha waxa leeyahay fadlan iigu samee redesign billboardkan qaabka qurux badan marka hadda sidoo kale aad u tiraahdo waxa weeyaan AI-ga luqadda Soomaaliyeed kula shay luqadda Ingiriiska ku marka khaasan ChatGPT la joogo waxa weeyaan already waxa labada uu fahmaya marka haddaanad waxyaabaha aad doonayso inaad bedesho iyo habkaad u dhigayso aanay wax weyn ka dhex guuxaynin waxa laga yaabaa marka resultii qalday noqsid tusaale imika waxa marka image generator baan doortay deedna prompt-kaas ka simple ka baan geliyay waan eegi doonaa markaa resultiga soo baxaya laakiin ugu horreyn shaqadu kama bilaabmayso AI waa meesha lagu talagalay dadka wadaad wax weeyaan waxaad u baahan tahay graphic design-ka foundationska inaad taqaano waayo uma baahni wax weeyaan ChatGPT soo gashaa doonto tagasti prompt haddaad iska geliso tusaale ahaan weliba si fiican aad u qortay yacni marka ugu horreysa waxaa ka horreyn inaad garanayso fikirka maxaad design garanaysaa iminka billboard-kan halkan yaala targetka koobaad waxaan ka dhigayaa in itemsku qaabka u yaalaan
qaabkan ka duwan mid walba boxkeedu ku jiro magaciisa ku qoran yahay inaan marka ku horeysa aan shaqadaasi qabto sawirkan weyn ee macnaha sameynaya markaan fadhiisiyo kadib baan wixii ka dambeeya marka waxa weeyaan aan designska loogada iyo qoraalka copyga iyo footerki markaas waxaa designka aan guda geli doona laakiin billboard ka wadooyinka lagu taago ee cabirkiisu weyn yahay 3/6 mitir waxaan u baahanaa shayga qofka gaariga wadi qofka lugeynaya markuu sidaa u arko shay markaba soo jiito inuu noqdo waayahay aan ku soo noqdo haddaba ka weyn eegi doona marka ka resultiga noo soo baxaya horta aynu eegno waxa weeyaan intaan fikirkaga aanan eegin qaabkii noogu dhisan karin waxaad arkaysa marka AI-ga haddaanad waxa weeyaan aad siiso uun qoraal iska caadi ama tiraahdo designkan waxaad igu bedeshaa design kale oo ka qurux badan ama haddaad iska tiraahdo design fadlan ii samee saas iyo saas oo aad macluumaad kooban aad siiso waxa laga yaabaa marka inaan wax qurux badan aan ku exactly limka resultiga noo siiyay uu ka sii buuq badan yahay marka la barbar dhigayo wax weeyaan keenii hore fikirka aniga dhex ku waxaya Pinterest kan tagayaa waxaan u baahanahay alaabtan inaan ku organize gareeyo bahalka halkii noo yaalo oo kale marka podium bahalka waxa loo yaqaanaa waxaan leeyahay podium product marka something like this oo kale waxa weeyaan items waxa weeyaan waa inaynu markaan alaabta ku organize gareeyaa baan leeyahay tusaalahan kan kale inoo sii qaado waxa leeyahay copy images dadna marka waxaan tagayaa billboardkaygii new chat baan leeyahay marka hadda waxaan leeyahay waxaad soo import gareysaa sawirkii hadda waxaan siinayaa as professionalism waxaan u baahanahay tusaalahan control v baan leeyahay luqadda Soomaaliga kula hadlaya laakiin isagan ka doonaya inuu generate gareeyo text prompt professional waxaan u baahanahay simple waxa sheegay marka qoraalka waxaan u baahnay ma ku wax weeyaan podiumka adigoo ka qaadanay sawirkan reference-ka waxa weeyaan items-ka iyo product-gana ilaalinaya inaad marka waxa weeyaan aad siiso hal meel aad product-gaasi aad dul saarto marka waxaan leeyahay hadda isii kaliya text prompt ku saabsan note-kaygaas waxaan hadda doonaya marka waxaan ku text prompt kaliya samee bal aan u diro wuxuu generate garanayaa oo ka sugaya waxa weeyaan waa English text prompt ku saabsan wixii aan ka fikray la wadaagay laba shay baan ku soo kordhiyay oo wax weeyaan sawirka inay laba qof oo markaas Soomaaliya waxa weeyaan ay ku labisnaadaan dharka qayb kamid oo intii product oo kaliya la soo saar lahaa one of baynu iska qaadanayna for example I preferred for the number of iska qaadanaya text prompt waxa weeye waa ii sameeyay hadda waxaan u baahnay markaa inaan koobiyeeyo waxaan tagayaa markaa qaybta image generator waxaan leeyahay markaa more then waxaan leeyahay markaa images ugu horreyn waxaan siinayaa markaa reference image-ka si uu markaa product war karayo then waxaan leeyahay markaa text prompt-kina markaa hadda ayaan markaa copy to paste aan leeyahay text prompt-kii ugu horreeyay aan u diray waxa xusid mudan waxa laga yaabaa inaan prompt-ka ugu horreeya ee AI-ga marka aad geliso dhibkiisu waxa weeyaan markaba result-ka ugu fiican inaanu ku siin marka waqti badan baa laga yaabaa inuu cuno one image inuu ku soo baxo laakiin result-ka hadda waxa weeyaan waa inoo soo dhow yahay hal mar baan markaa aan wada bedeli doonaa si aynu markaas ku leegno the final image-ka waxa weeyaan ay soo baxaa waxaa hadda inoo diyaara markaa sawirkaanu isticmaal lahayn campaign-keena markaa hadda waxaan markaa design garan doonaa waxa weeye markaa billboardkii rasmiga marka anigu sawirka mainkeen ka duulaya markaan sameeyo ee aan AI-gan kusoo sameeyo inta kale ka soo hadhay waxa weeyaan basic waxaan ku isticmaalaa markaa toolska kale hadday tahay Adobe Illustrator iyo hadday tahay Adobe Photoshop waayo markasta haddaan marka Israel isagoo sidiisa u taagan qoraaladii ku dul qor loogadii dul saar haddaan isla dib AI-ga adigoo isticmaalay wax laga yaabaa markaa inuu haddana sawirka uu iga sii waalo marka maadaama wax weeyaan shayga ugu muhiimsan aan haysto hadda waxaan dhex keenayaa markaa waa Adobe Photoshop dadna waxa leeyahay right click dadna waxa leeyahay markaa maadaama project-ka si rasmi loo daabacayo oo quality-giisa iyo size-kiisa la doonayo in billboard rasmi la leekaysiiyo waxaan markaa u baahan markaa ku isticmaalo Photoshop-ka ugu horreyn waxa soo furaya markaa new documents waxa leeyahay markaa size-ka billboard-kan sameynaya waxaan halkan bedelaya markaa centimeter marka waa meelaha aanu Adobe meelaha aanu AI-gu ku sameyn karaynin sawirka daabacada rasmiga geli karaya kuma generate garan karayo hadda waxa leeyahay markaa 300 oo waxa weeyaan maxaa loo yaqaanaayay mitir cafwan centimeter iyo waxaad iga dhigtay 600 marka waa 3 mitir iyo 6 mitir baa u dhigmaysaa resolution waxaad markaa ka dhigaysaa 72 markasta waxa weeye resolution-ka width-ka height markasta sawirka image-kiisa uu weynaado resolution-ka la yareeyaa marka concept-kaas oo dhan oo daabacada khuseynaysa AI-gu ma qaban karayo waxaan hadda markaa leeyahay waxaad samaysaa create dadna billboard rasmiga cabirkiisa waan soo qaatay sawirkan ku noqonaya sawirka laba shaqaan uga dalaya markaan ku sameynaya ugu horreyn waxa leeyahay markaa size-kiisa ayaan weyneynayaa marka ka hor intaan size-ka weyneyn horta background-kan ka remove gareeyo marka waxaan leeyahay marka remove background just AI baan isticmaalaya ku dhex dhisan Adobe Photoshop hadda waan analyze gareynayaa aynu eegno markaa result-ku na siiyo waayahay background-kii sida ay tahay ayuu markaa waxa weeyaan uga gooyay meelo yarar baa markaa uu kaga hadhay meelahana waad soo dhawaysanaysaa tusaale ahaan halkan oo kale waxaa leeyahay markaa isagana waxaan isticmaalayaa markaa toolskayga caadiga ee basic Photoshop-ka waa meelaha aan qofka kula taliyo inaad u baahan tahay mar walba
inaad foundationka iyo aasaaska graphic design kaga badanta kale waxaan ka goynayo iyo qaabkan uga goynayo toon waxa laga yaabaa inaanad si fiican u fahansanaanin haddii uu sanado AI wax walba isticmaalaa waxa laga yaabaa shaqada meel fiican ku maraysa inuu kaasi tuuro shaqadaas waa shaqadii koobaad waxaan leeyahay markaa hadda sawirka waxaan ku sameynaya marka wax loo yaqaano size-kiisa inaan weyneeyo waayo sidiisa haddaan drag and drop u sameeyo oo aan u dhexgeeyo markaa billboardkayga size-kiisa aad buu yaryahay marka the more sawirka size-kiisa aad weynaysana waa the more sawirka resolution-kiisa ama quality-giisu uu aad u liidanaya marka xagga sawirka si aan taa uga hortago waxaan leeyahay waxaan tagay markaa qaybta loo yaqaano image-ka isla waxaan isticmaalayaa AI waxaa leeyahay markaa waxaad ii samaysaa generative upscale deedna click markaas iyo different AIs kala duwan buu isticmaalaya Firefly-ga isaga laftiisu kugu jira laakiin ka ugu fiican markaa isticmaala waxa weeyaan waa Topaz-kan anigu isticmaalaa deedna double baan leeyahay size-kiisa iga dhigta 4 tirado it's okay wax ku diidiya ma jiraan markaa 4 baynu eegaynaa hadda waxaa le markaa upscale lagu sameeya hadda dib ayuu markaa sawirka quality-giisii uu hagaajinayaa aynu eegno markaa result-kuna siiyo waayo hadda sawirka size-kiisii aad buu inoogu soo weyneeyey waxaan markaa ku sameynayaa ugu horreyn sawirkaan doorto little bit haddaad u baahantay adjustment colorskaad ku yara samaynaysaa camera and row baan tegayaa little bit waxaan leeyahay markaa faceka casaan baa in yar ku yara jira little bit saturation markaa iska ilaa inaad flagga inaad taataabanin special haddaad doonto sawirka goonaa u dooran karaysaa waxaa iyadana xusud mudan flagska calanka ma laha sababta waxa weeyaan calanka qolada teamka daabacaya asli waxay u diidaneed waxa weeyaan maxaa loo yaqaanaaye dadku calanka isagoo shahaadadii ma laha baan uga jeeda marka hore waa laga soo rabay haddaad u aragto flags inuu isticmaalo inuu bilaa shahaado tahay marka hore ayaynu ugu talagalnay waayahay deedna waxaa leedahay markaa okay sawirka waxaa leedahay right click waxaan markaa imika u bedelaya convert to smart object si aanu quality-gu markaa u lumin basic casharada graphic design-ka waxaad ku baranaysaa sawirka markaa imika waan soo dhex dhigay sawirka size-kiisiina waxaa leeyahay little bit iisoo yara weynee waayahay shaqadaasi waa shaqada billboardkii koobaad ee designkiisa aynu samaynayno mostly markaa buuq inta badan ma doono waxaan soo qaadanaya hadda waxa weeyaan loogadii baan haddana soo qaadanayaa waxaan leeyahay markaa aan soo geliyo logos 3x1 logada markaa waxaan isticmaalaya asli printing drag and drop size-keedana waxa weeyaan iisoo weynee halka sare markaa dhigaynaa qoraal baa weli inoo dhiman dabcan laakiin marka ugu horreysa loogada hortaan centralize gareeyo waayo waxaan soo qaadanaya isagana footerka symbol baan ka dhigayaa double click colorska telefoonada iyo xogtiisa in halkaa ku qori doonaa waayay intaa waxaan ku darayaa background gradient markaa inaan ku sameeyo waxyaaba markaa mar kastaad photoshop ugu banaysa symbol waxaa isugu soo noqdo marka okay brand colorka little bit black bayn door bidayaa size-kiisaan kordhiyo waxaan filayaa gabagabadiinu hadda ku dhownahay keliya waxaynu sameynaa markaa waa call to actionkii inaynu footerka hoose markaa aynu ku qorno control v smart object dadka inta badan qalaadka sameeyaan waxaa ka mid ah marka billboardska oo kale waxa weeyaan inay footerka aad u yaryareeyaan ama telefoniska oo kale marka innaga waxaynu ugu talagalnay size-ka ugu weyn ugu macquulsan inuu qaato maadaama qofka gaadhiga wada ama lugaynaya ee dhaafi karaya aynu ugu talagalnay marka aynu si degdega waxa weeyaan wisha ugu dhufto waayahay billboardkani koobaad shaqadiisii ugu horreysay waxaan filayaa saasay noogu dhammaystiran tahay wixii qurqurxina in yar aad ku dardarto adjustmentiga xagga fontska faraha waxaas waqti badan baad kusii bixinaysaa haddii markaaynu isbarbar dhigno kani waxa weeyaan waa markii hore qaabka u eegaa billboardku kaasoo too much waxa weeyaan mid waliba separate ama independent uu ahaa waxyaabaha la iibinayo ama product la iibinayo hadda laakiin waxa weeyaan simple hal image qofka markuu saa isha ugu dhufto waxa weeyaan soo jiidanaya ayuu eegyahay marka artificial intelligence-ga billboardska khaasatan maadaama waxa weeyaan kan billboard uu haya itemska ay aad u farabadnaayeen habka wax u generate garanayay waqti badan ba wax weeyaan naga baxayay projectka labaad aynu ka shaqayn doono waxa weeyaan inaynu design garayno social media poster aynu samaynayno marka akademiyada ama sid academy marka posterska marka laga warramayo khaasatan AI iskolen waxa weeyaan si aad u fudud bay marka u sameeyaan aynu eegno marka haddaba saynu u siinayno xogta ugu horreyn waxaan siinayaa marka loogadan soo qaadanaya waxaa leeyahay marka sid academy marka okay posterskan marka waxaan ugu talagalay waxaan ka fikirayaa like inaan ku xaysiiyo new shahaado cusub ama certificate cusub oo akademiyadu ay bixinayso kaasoo ah waxa weeyaan waa full graphic design certificate marka ugu horreyn waxaan siinayaa qoraal ku saabsan xogta aan doonayo in laga sameeyo dadna waxaan odhanayaa marka structure-ka waan israacin kartaa laakiin sida professionalka waxa weeyaan ugu horreyn xogtaan siinayaa xogta markaan siin waxaan odhanayaa marka waxaad siisaa laba qodob qodobka
shahaadada koobiga ama textiga ama contentka lagu qorayo qoraalka ah deedna mar labaad kana xornay waxaa text prompt deedna stepka saddexaad markaan ka odhanaya ii samee markaa poster marka ugu horeyn aan siiyo akademiyada maadaama waxa weeyaan ChatGPT aan kilingareeyay historical ma haysto marka waxaa la wadaagi doonaa xog ku saabsan akademiyada marka hore qoraalka marka waxaan ku sheegaya waxa weeyaan symbol si raf ah baan waxaan ku sheegaya waxa weeyaan sida academy inay tahay non profit goob waxbarasho habeeraatee ardaydan waxa weeyaan wax lacag laga qaadin koorsooyin kala duwan ay bixiso marka qaar kamid aan soo qaatay sida graphic design web design mobile and web development digital marketing waa qaar kamid laakiin inta ayaan ka badan insha Allah inaynu duubno oo inay soo galayaan rajaynaynaa way marka waxaan doonayaa ugu horeyn inuu ii sameeyo waxaan ku markaa qoraal kooban oo ku saabsan shahaadadaasi ka turjumaya poster Facebook ah ii samee marka stepka ugu horeeyay waxaan doonayaa inuu ogaado akademiyada isla markaana ii generate gareeyo text qoraala oo ku saabsan uma baahan markaa inuu image generate gareeyo muxuu siiyay markaa options aan dooranayo wuxuu nagu yiri shahaado graphic design kaaga ka qaado sida academy okay graphic design certificate waa option 1 baro xirfad okay hel shahaado okay dis mustaqbalkaaga ayaan ma doonayo tagline kaasi kubra graphic design ka si bilaash ah kuna hel shahaado dhamaadka course-ka it's okay way marka waan isku gegeysanayaa concept-ka ku siiyo maaha boqolkiiba si soo qaato hadad ka heli weydo mar labaad dadku celinaysaa laakiin ugu horeyn marka waxay fudan qaato title-ka kan baan leeyahay qaado description-kana waxa la kubra graphic design ka si bilaash ah kana waa okay muddadan tusaalaan waxaan leeyahay course time مثلا waxaan leeyahay 90 days okay xog kamida marka call to action kale tusaale ahaan waxaan leeyahay okay aan raahdo CTA ama call to action waxa la tusaale ahaan register at hal iska diiwaan geliyo sida academy.com basic marka call to action inta ugu fuday uu qaadan karaya waa intaasi hadaba xogtu siiyay qayb kamid ah soo qaatay tusaale ahaan title kana waan qaatay graphic design ka waxa la markaa okay software lagu qaadanayo waxa la please are this tools sida lagu qaadan waxa la Adobe Photoshop Illustrator InDesign way intaas waxa waa tools lagu qaadanayo inta kadib hadaba xogta rafka ay siiyay hadda waxaan doonayaa markaa inuu igu generate gareeyo waxa weeyaan text prompt qoraalkayga rafka marka waxaan leeyahay fadlan waxaad ii samaysaa text prompt aan u isticmaalayo ee iska sameeya imageska marka design-ka aan rabaa waa qaabka yes halkaas markaa muhiim qaabka waxaa la tusaalaan Apple design system khaasatan glass style similar glass morphism yana oran hadda glass style baan leeyahay marka posterku waxaan doonayaa inuu eegaado shirkadda Apple designskeeda ay glass marka iOS-ka iyo versionada ugu dambeeyay waxaan glass morphism oo kale ka dhigtay marka waxa muhiim ah inaad garan karayso waa sababta aan leeyahay designerska mar walba nagu celcelinay waxaan garanayaa structure-ka aan doonayo posterska inuu eegaado marka waxaan leeyahay glass morphism style ha noqdaan isticmaal soo kale waxaan leeyahay logo-iska Adobe marka description-ka saad u siinaysa waa ka qayb marka okay raf ahaan baan u siiyay step-kan ma doonin markaa inuu ii generate gareeyo image sababta waxaan kaliya u baahanahay fadlan waxaad siisaa text prompt baan ku iri marka hadda aan idhaahdo isi waa sababtan kule marka luqadda doonto kula hadal description-ka qayb kamid ah haddaad garanayso AI-ga aad siiso wuxuu ku siinayaa markaa imika tusaale ahaan wuxuu leeyahay waa create waxaa samaysaa premium Facebook poster for sida academy samee promote lagu promote gareynayo graphic design certificate program kaasoo using adu isticmaalsa modern Apple design system glass morphism style daas waxa weeyaan qodobkan u baahanayd main ciwaanku wuxuu wax ka dhigtay graphic design certificate subheading kana kan ka dhig course duration kiisa waxa la 90 days CTA kii uu sameeyay visual structure kiina waxa weeyaan waa uu siiyay marka exactly kamaan u baahan koobiyeysanaya yes kan waa kii hore markii hore waxa weeyaan uu sameeyay marka haddii glass morphism exactly wali sidaan doonayay kama dhigin because waxaan doonayaa xagga inuu eegaado light version oo kale marka haddaad imika si warwar qabto ugu horreynta inaan improvement ku sameyn text prompt-ka bal waxaan siinayaa different ka duwan waxaa leeyahay markaa loogada inaan soo geliyo waa yahay sida academy deedna waxaa leeyahay control v dhinacana markaa ha kasii sameeyo haddii markaa resultiga labaad uu fiicnaan waayo waxaan isku dayi doonaa markaa text prompt-ka waxyaabaha ka qaldan inaynu markaa waxa weeyaan aynu xallino ugu dambeyn waxaad arkaysaa markaa design-kii waa inoo sameeyey kan kii hore waa ka duwan yahay exactly design-kan waxoogaa glass morphismska dambaad moodaa waxoogaa too much inuu yaara uu yahay laakiin mostly haddaad eegto waa design social media waxa weeyaan aad u macquula matalan waxaan leeyahay fadlan background-ka dambe aynaga hadaba final result inoo sameeyay markii hore wax weeyaan background-ka buuq buu ahaa
deedna markan waxa weeyaan simple ka dhig exactly waa sidaynu doonayno more simple buu ka dhigay waxa weeyaan softwareadii toolskii si fiican buu muujiyey shahaadadii si fiican bay soo muuqatay graphic design certificate deedna ku baro luqadda soomaaliga 90 days haddaad u baahantay markaa adjustment inaad kasii qurux badnaysa dabcan yes waxaad oran kartaa version kale sii waxaad eegi karaysaa isagoo dark versionkiisiiya marka waxaad arkaysaa sidaynu rabnay ayuu waxa weeyaan inoo siiyey exactly sidiisaasi ayaynu isticmaalaynaa marka projectkeena labaad oo aynu ku samaynay waxa weeyaan markaa social media poster waxa weeyaan isagana si qurux badan from bilow ilaa dhamaad buu inoogu sameeyey waxa laga yaabaa meelaha mar kastaan waan checkreeyo ugu muhiimsan waxa weeyaan waa loogadaada mar walba ha aaminin taw isagu ku siiyo waxa muhiim markaa inaad mar walba waxa weeyaan aad versionka uu isagu ku siintaas ka masaxdo versionka caadiga soo isticmaasho marka kana saasaynu ku qaadana sidaas oo kale waa macquulkii ratio inkastoo square aanu ka dhigay laakiin ratio saxda ahayd buu qaatay way projectna saddexaad waxaanu ku eegi doonaa website-ka halkan inooga muuqda inaynu waxa weeyaan samayno ama generate garayna assets-ku u baahan yahay sida iconska illustrationska iyo haddaynu u baahno waxa weeyaan imageska marka website-kan waa website rasmiya guud ahaan sawiraalka inooga muuqdona marka hore waxaan kusoo sameeyey waxa weeyaan waa isla AI-ga aynu mar labaad ku generate garayn doona qaybta inaga maqan hadday tahay markaa illustrationskan haddii ay tahay waxa weeyaan markaa iconska marka pageka qaar baan waxa weeyaan weli aan dhamaystirin tusaalahaan waxa tagay qaybta loo yaqaano what we do marka haddaad halkan hoosaad eegto iconska halkan inooga muuqda website-ka ma match garaynayaan marka hadday tahay waxa weeyaan iconka iyo surface halkan inooga muuqda isma match garaynayaan colorski brandkiisuna waxa weeyaan ma match garaynayaan marka inagoo isticmaalaynaa artificial intelligence loo yaqaan ChatGPT waxaynu u baahan inaynu generate garayno waxa weeyaan iconska sidoo kale waxaanu generate garayn doonaa qaar lamida assets halkan inooga muuqda oo tusaalahan already waan ku generate gareeyay imika tusaalahan haddii laga warramayo diplomatical research and the policy development this is waxa weeyaan iconska ugu soo dhow marka qaabka loo sameynaynu eegno ugu horreyn waxaan isticmaalayaa markaa botka halkan ku yaal loo yaqaana ask chat marka waxaan anigu isticmaalayaa ChatGPT browserka uu leeyahay loo yaqaana Atlas marka haddaad Chrome isticmaalayso extension gooniya baad ula soo degaysaa laakiin anigu waxa weeyaan Atlas waxa weeyaan ChatGPT waa iska leeyahay browserka marka barta botka ku soo dhigay marka click siiyo ugu horreyn waxaan u baahanay markaa website-ka tusaale ka soo qaad haddii aad website template aad waxa weeyaan aad isticmaalaysay marka iconska oo kale waxa weeyaan template-ka ay hore u diyaarsanayd aad doonayso inaad bedesho maxaad yeelaysaa talabada ugu horreeya iminka iconska halka inoo yaalo dhan ayaan doonayaa inaan bedelo waxaan leeyahay Soomaaliya markaa mar walba kula sheekaysanaya marka waxaan leeyahay isi surfaceska ugu weyn ee pagekan what we do marka inaad surfaceska ugu weyn ayaan odhan surfaces oo dhan titleskooda ee pageskan it's okay waxaan doonayaa markaa inuu waxa weeyaan marka ugu horeysa uu ii soo qaado dhammaan waxa weeyaan iconska halkan igu jiro oo dhan wixii markay sii waxa weeyaan waa 6 wuxuu sii markaa diplomatical researchkii oo kan ugu horeeya ah kalabaad wuxuu ka dhigay markaa geopolitical buu ka dhigay marka dhammaantood waxa weeyaan surfacekii waa uu siiyey diplomatical the capacity building waa yahay next step ku xiga waxaan leeyahay tusaale ahaan loogada kala soo qaadanaya waxaan leeyahay copy intaan markaa loogada aan siinin waxaan u baahanay waxaan leeyahay waxaan rabaa iconska ugu dhow ee aan isticmaali karo magaciisa wuxuu yiri markaa diplomatical researchka and policy okay waa file text u isticmaal ama scroll text book open waa yahay markaa options kala duwan tusaale geopolitical analysis kala xisiyo waa global marka radar map something specific marka waxaan leeyahay mid kasta waa kan wuxuu ka dhigay marka waa file text kan maxaa waa diplomatical research wuxuu ka dhigay marka file text waxaan imika waxa weeyaan loogada marka color ka qaado laba color kaliya marka ka qaado marka waxaan leeyahay dhammaan 6 surface isi text prompt icon generator adiga oo brand color team kana ka qaadanaya loogada sidaan aga sareko say text prompt ko han noqdo English simple waxaan doonayaa markaa mid walba inuu generate gareeyo waxa weeyaan text prompt each surface kasta si aan markaa ula tago okay image buu generate gareynayaa uma baahni inuu image generate gareeyo horta marka hore aan eego waxaa laga yaabaa marka qaar resultiga saad u doonayso markaad u siiso inuu si kale u qaato dadna resultiga ku siiyo marka resultiga uu ku siinayo waxa laga yaabaa marka qaar waxa weeyaan shaqo badan waqtiga aad qaadan lahayd in waxa weeyaan hal mar oo ku soo fudiyo maybe imka laga yaabo 6 ay kan baynu hal image isugu keeno dadna simple intii mid walba gooniisina mid walba aan gooni aan u baari lahaa ama u generate gareyn lahaa inaad dadna si easy aan u isticmaalo marka waan eegi doonaa bal waxa uu siiyo
hadda wuxuu siiyey markaa waxa weeyaan waa lixdii color haddaad click siiso laakiin qaabka u dhigay waxa weeyaan text promptkayga weli ma uu fahmin sidooda waan u qaadan karayaa oo waxa weeyaan tan laftooda waxa weeyaan shaqada uu ii soo fudaydiyey markii hore conceptka ka fikirayay wuxuu ahaa inuu qoraaladan waxa inuu raaciyo maan doonahaynin just inuu iconska siiyo kaliya tan doonaya hadda kan baan waan sii isticmaali karaya waxaan leeyahay fadlan ka saar way hadda markaa waxa weeyaan iconska noo generate gareeyaan copyisto waxaan dhex gelinaya markaa Adobe Illustrator waxa weeyaan meelaha markaa toolskan softwarekan aad uga baahan tahay Adobe Illustrator waxa weeyaan asaaskiisa aad taqaano si markaa iconskan aan ugu bedelo waxa weeyaan high quality isla markaa waxa weeyaan mid walba aan gooni uga dhigo maadaama imika ay sawir yihiin waxaan tagayaa markaa image tracer dadna waxa leeyahay markaa 3 color igu generate garee way markaa mid walba waxa weeyaan markaa imika high quality buu ka dhigay dad kale aad soo dhaweyso waxa weeyaan markaa waa high quality waa factor waxa leeyahay markaas oo kale xagana soo dhigo backgroundkooda markaan ka remove gareeyo advanced backgroundka waxa la ignore the color background ugu dambeyn shaqada saas ay ku dhan tahay expand marka waxaad arkaysaa icon kasta imika waxa weeyaan waa mid kasta waa goonidiisa meesha doonaysa waad u qaadan karaysaa gooniyada u save garaysan karaysaa 6 icon oo isku eg intii aad mid walba waxa weeyaan aad gooni aad u baari lahayd marka adigoo isticmaalaya ChatGPT markuu generate gareeyo Adobe Illustrator marka waxa weeyaan aad factorizer aad ugu bedesho waxaan hadda ku laaban doonaa waxa weeyaan isagana waxaan tagay qaybta loo yaqaan marka insights marka kan waxa weeyaan waa normal icons laakiin hadda si aan u sameeyo waxa weeyaan iconska ama waxa weeyaan sawirada halkan kaaga muuqda iyagana tusaale ahaan kun horaan u sameeyay laakiin kan kale waxa weeyaan waa inoo daayay si markaa kanoo kale aan ugu base gareeyo ugu horeyn waxaan la wadaagayaa referenceka imageda halkan yaala marka kan aan iska soo xiro waxaan leeyahay marka new chat below si aanu kii hore aanu iskaga khaldin waxaan leeyahay marka mid kamid aan soo qaato waayay kale right click waxaan leeyahay marka copy images control v way marka horta sawirkan reference ahaan hay ugu haysto way marka waxa uu siinaya waxa weeyaan hadda waxa weeyaan sawirka hore uu gartay wuxuu ka kooban yahay marka imika waxaan u baahanahay sawirka halkan iga muuqda inaan u bedelo ama uu siiyo iconkiisa marka waxaan leeyahay way Dragon Somaliland and Africa okay read me iska daanta siisa ku tinaysa marka soo xasiyay title-kii marka isi illustration 3D lamid ah kii aad u haysatay reference balse ku base grayson title-kan aan kula wadaagay simple waxaan siiyay marka hore sawirka reference-kiisa aan u siiyay marka title-kiisa markaan aan drag and drop ku sameeyo saan dul geeyay waxaan og doonaa marka research illustration-ka ee waxa weeyaan uu siiyay marka sawirka la wadaagayso marka reference fiican uga sii qaato copy to images hadda kale isaga akhrisan karayo read all through karaysa laakiin aynu soo fududeyno control v waxa kale isaga la right click copy images control v sawir labaad aynu eegno mar walba ayga the first generator-ka ugu horeeya uu ku sameeyo wax laga yaabaa in uu kaaga baahdo xoogaa inaad update geliso marka qaarna sidiisa aad u qaadanaysaa marka qaarna waxa weeye waqti badan iyo time badan ayay kaa qaadan kartaa kolba sida aad doonayso inuu kugu dhigo sawirka ugu dambeyn inoo generate gareeyo waxa weeye illustrationskeena waa mid waxa weeyaan si fiican oo aynu qaadan karayno kuweena kalena waxa weeyaan si fiican u match karaynay marka arkaysaa illustration fiican oo tusaalehaan navigation complex relationship something is this is waxa weeyaan marka navigation marka wuxuu qaatay African oo read mapkeedu uu qaatay marka haddaad eegayso waxa weeyaan sawir ama haddaad doonayso website waxa weeyaan aad si professional aad u dhisan karayso tusaale website halkan inooga muuqda haddaad xiisaynayso waxa weeyaan course gooniyan ka samayn doonaa technology ku dhisan loo yaqaan Webflow laakiin guud ahaan website halkan inoo muuqda wuxuu ka koobnaanaya marka waa dhowr qodob kow wuxuu ka koobnaanaya wax loo yaqaan sawiro iyo images waxa weeyaan qurxinaya oo macno u sameynaya website-kaaga ChatGPT waxa weeyaan ama AI isku waxay ka caawinayaan ku sameeyaan sawiro isku mid ah oo soo tusaale sawir halkan kaaga muuqdo isku qaab u baxaya haddii tahay marka 3D illustration iyo haddii ay tahay sawir halkan kaaga muuqdo sawir rasmi ah marka website-ka qaybtooda ku dhisan yahay waa sawirada qaybta labaad ku dhisan yahay waxa weeyaan waa content-igi marka textiga iyo qoraalkii qoraal realistic ah oo waxa weeyaan macna gudbinaya inuu ku siiyana isaga ka caawinaya marka waa AI isku hadda waxa weeyaan marka website ama adoonsa web designer aad noqoto shaqo weyn buu ka fududeynaya marka sida sawirada inuu ku generate gareeyo inuu ku generate gareeyo AI-ski inuu ku generate gareeyo waxa weeyaan 3D illustrationski iyo inuu ku generate gareeyo copy-gii ama qoraalkii ama textigi marka cashirkeena maanta waan ku soo qaadanay marka nashqadeynta ama ka shaqeynta saddexda project inaan ku sameeyno wax weeyaan daabacaadii inagoo isticmaalayna ama sameynayna billboard wax weeyaan aad u weyn laba inaan sameeyno wax weeyaan social media posterski inagoo isticmaalna marka Facebook poster ku design gareynay iyo ugu dambeyn inaan generate gareynay icons iyo illustration 3D inagoo isticmaalayna marka waxa weeyaan website rasmiya assets oo baahna marka intaas ku soo gabagabeynayna
AIskana waxa weeyaan markaa maalinba waxa weeyaan qaybaha ugu muhiimsan baynu ka warrami doonaa maanta waxaanu focus gareynay graphic designka casharada dambe soo socda waxaa laga baynu ka warrano waxa weeyaan coding hadday tahay waxa weeyaan maxaa loo yaqaanaa branding oo si gooni aynu uga warramino marka casharo fara badan baynu ka samayn doonaa haddii allah awoodda inuu ogolaado fadlan haddaad xiisaynayso waxaa muhiima inaad commentka hoose aad ku qorto qaabka ama nooca ama casharka goonida ah ee aad ka xiisaynayso AI hadday tahay inaad video generator xiisaynayso hadday tahay qaabka websiteska loogu marka whatever commentka noogu reeb intaasaan kula tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu